مين جمع هويستا هبنكي لانتا هنهوري وسحدا حدي أنا دي لهذا هويو أنا دي جودن. السلام عليكم مقعي وعزام أهو بحرجينا إنا عافان قبتين هدي أتهي مركبو ريسي أصوب بوقتي يوتيوب كيغا سبسكرايب سار أد بقى ما سنتهي أصحاب أد قرح بدن ولا أد قرح بدن يا فيديو يصد دري إنستغرام كيغا سناب كيغا دتكاس شرط كرامة له إلى مرة الفيديو كسونا كهذا ما أنت فيديو قصين أيو فيديو طلع عندي ونهرو إن تلديبتو يدعو مدي كواد يا ربا إنا صداونو كدبنا أنا رأيي كدبنو هذا أنها تيم عزام شرف كرامه فيديو كهريو أما كدم بين دون إن شاء الله وحنقنا فيديو إيشدتين إنستغرام كيجا قرالة بدن قرالة إن شاء الله وحرا فيديو هديك سو جارو كان كوحيجو وفيديو قرالة أصدرتين إن شاء الله عن كسر جوابي أصدق دونا شرف كرام فيديو كهريو يا ربا إن تلا أن كدبنو سؤال بكويدينيا سؤال شكويدينيا واحد هاي maxaad saacad kasta ama mar kasta ama 24 saacadood maxay tahay sababta aad markas iga fikirtaa? waa su'aal wanaagsan waxaan kaaga fikiraa oo aan mar walba adaad maqantay adaad joogto aan ku ogaada waayo waxa islaayaan dareemin inaad booski hooyadii buuxin kari weyday anaan buuxin karin جمع هويستا هبنكي لانتا هنهوري وسحدا حدي أنا دي لهذا هويو أنا دي جودن ودنياي قبتا ودنياي قبتا سؤال شاسي فيديو قيبتها اللي صدر دري ودابتين وايو سؤال يودي ويلكا هويس يودي قرحي waxaan filaa in ay taaleeyaa su'aashu wadi waxay heeday sababta maar walba aad iga fikirtid maxay tahay ayadu waxay u jawaabtay dhahday intaas waxaan ka fikirayaa sakin walba ka fikirayaa sababta waxay tahay in aan ku dareensiinin in aan hooyo la'aan aad tahay dareemi kartaa hooyo la'aan waxaad dareemi kartaa qof hooyis u joogin waxaad dareemi karaa qof hooyadiisa dadsan arkin waxaad dareemi karaa xanuunka hooyada ay leedahay hooyadaada ka fog haddana maanta haddii xanuunsan tahay aad tigi karin xanuunka ay leedahay ama hooyada dhimato oo kale waxaas xanuunada hooyada ay leedahay ay waaye waxaa leeyahay videogaasi wiilkaasi maamada oo wiilkaasi su-aasha weydiiyay iidin u jawaabtay waxaa leeyahay walaal hooyadaada dhimata Allah naxariisto jannada ka waraabiyo maamadaana eedidana waxaa leeyahay waa dareemi karnaa xanuunka ay leedahay hooyo la'aan iidin ku maasantahay su-aasha xigta rabaa inaan ka jawaabno shinjir aan weli cuno وعروض أنا السماعة إلى أنا يصير إلهي أبصي waxa uu macnaa ugu fiican oo la helan وأمتك أربع إسكندر عاير والله ده يعني أولادي سفود إنه كل دلان هذا إسكندر عاير ده إسكار كيسا حاسو جرسي لو متاني وده شيء متكلو قدر لو متاني وده شيء ويرى صاحب أنا حتى وجملة عيال وجو ضيع جوديو أورل جوديو ودلائسو ناس لوجلسو هرانتو دولة كبيرة فرحان ساسمي يعني نتقارن نمعذا يعني ما أقول نمعذا يعني إلهي أو قفك بالآدم كأوسيو لمبر 1 وعروت أولاد دوا إلهي رب قرك عنه حق رجينا إنه يعني يدعو والد أو ولد أب عروت كيوري نارك أنا ندمن إن شاء الله نارك رجينا آمين أنت دعوانا يسمع أبو باقة إنه إيسو دعيان إلهي رب قرك عنه يسال أولاد إن شاء الله ugu muhiimsan nolosheeda aan rabo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay abuurtay aan ka rabo oo ka rajeenay waana mar walba aan bari Ilaahay salaatul leel u tago wiilka walaalkeen ahna xaleenaha oo duceynayna walaalkii qaaliga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku siiyo ulad baari ah kaliya lama dhaho Ilaahay ulad si lama dhaho waxa lagu duceystaa Ilaahay ulad si ulad baar Allah iga dhigo baa lagu duceystaa ulad baar Allah ku siiyo walaalkii qaaliga sharaf ikraam in u duceeya walaalkeen qaaliga si niid u duceeya okay سؤال شكل فيديو كلي صدر أي رواء إن أنك جواب وقص أدو حنون بدن
qisadaasna waxaa rabaa in aan dhegeysano kadibna wax ra'ayin aan ka dhiibo soo dhamaatay gabadhii tani waa qisadii jacayl ee ka soo bilaabatay gudaha iskuulkii waxbarashada kuna soo dhamaatay gabadhii oo waalatay furiin iyo weji folxun ilaa heer ay gaartay gabadhii inay dharka ku dhex tuurato xaflad aroos maxay tahay sheekada qarsoon ee ku duugan qisada gabadhan da'da yar iyo saygeedii ee ka soo bilaabatay gudaha iskuulkii waxbarashada nabsigu waa mid soo daahiro inta dunida la joogo Fadxi Yariisay waa gabar yar oo 16 jir ah waxaa laga yaabaa inaad mar uun ku aragtay baraha bulshada saacadihii la soo dhaafay muuqaaladeeda oo ay bulshadu habab kala duwan u faaqidayaan sheekadeeda waa midaan horay loo dahaqaadin balse aan jeclaystay inaan dahaqaado min bilow ilaa iyo dhammaad Fadxi waa gabar yar oo ka dhalatay qoys danyar ah oo aan awood badan lahayn sidaan xogta ku helay waxay iskuulkeedii waxbarashada isla dhiga jireen Cali Oslo oo ah wiil tiktoker ah jecelna inuu gabdhaha iskaga bedelo sida shaatigii oo kale iyadu war uma aysan haynin shakhsiyadiisa hoose ee nuuca qofeed uu yahay jacayl iyo haasaabo dheer ayaa dhex maray Cali Oslo iyo Fadxi waxay iskaga dhawaadeen dadkii kale waxay noqdeen kuwa la isku lifaaqo xilliyada iskuulka qof kasta oo arko waxay ahaayeen kuwa dadku isla jeclaayeen siday isku ilaashadaan muddo dheer kadib waxay ku heshiiyeen guur iyo inay qoys jagleelaan iyagoo yaryar Fadxi weli xilligaas waa yareed oo caqligeedu ma uusan kala goyn balse Cali oo ka weynaa iyada ayaa saaray maskax ka weyn waxa uu ku qanciyay inuu isagu wax walba u noqonayo nolosheedana booska ay rabto uu buuxinayo qoyska gabadha markii ay ka war heleen xiriirka Cali iyo Fadxi oo meel adag maraya waxay u diideen gabadhoodii wiilkii ahaa Cali oo isagu rabay gabadhan yar inuu guursado ugu dambeyn Cali waxa uu kala dhuuntay gabadha yareed qoyskeeda muddo la raadinayay Cali iyo Fadxi waxay qoysku ku qasbanaadeen inay isku daraan maadaama ay isdoorteen sidii ayaana lagu siiyey gabadhii yareed ee uu markii hore qoyskeeda kala dhuuntay ugu dambeyn Cali waa uu guursaday muddo ayuu qabay gabadhii ahayd Fadxi baraha bulshada ayuu soo geliyay gabadhii yareed muuqaalo lamaana ah ay soo bandhigi jireen labadooda ilaa markii dambe xiriirkoodu rafaadka badan ay u soo mareen halkaasi uu ku burburo Cali sidii Fadxi ay ugu listay uguma uusan hambayn waxay marar badan sheegi jirtay intii ay caafimaadka qabtay in Cali Oslo oo ahaa wiilkii ay nolosheeda u hubaysay qoyskeedana ay uga soo fogaatay inuu nolosha ku rafaadiyay intii uu qabay markii ay kala tageenna uu culays badan ku hayay Fadxi Yariisay hadda way xanuunsan tahay sida la sheegayo qaracankii ay ka qaaday qoyskii ka burburay iyada oo da'yar ah iyo dhibaatooyinka yimid saygeedii hore ayaa ku sababay in sidan ay samayso oo ay dharka tuurato guys video waa daawateen waad aragteen Fadxi Yariisay waxaa leeyahay walaasheedii qaaliga ah ilaahay maskaxda ilaah kugu dejiyo waayo waa dareemi karnaa xanuunka oo jacaylka uu leeyahay like mararka qaar waxa ku qabanayso jacayl kulaha sameeynin saano kale markay tahay oo kale waxa ku qabanayso wax jacayl ah ha sameeynin jacaylku waa naxariis laakiin dadka qaar hawaaye isku mid ma ahan saas ay tahayna wiikan oo dhibaatada geystay rag ayuu matalaa laakiin ragga isku mid ma ahan rag shaatib seel wadaagaan laakiin maanka damiirka ayaa kala duwan waxaan ku leeyahay walaashid qaaliga raali noqo wiilkan dhibaatada geystin waxaan leeyahay niyow ka soo qaad walaashaada oo maanta ma jeclaan lahayn in walaashaada la xumeeyo ama dhibaato lagu gaarsiiyo ama qalbi laga dhaawaco mar walbana isku day in gabdhaha Soomaaliyeed aad ixtiraamtid saa hooyada kale loo ixtiraamo rabtid in walaashaada iyo ehelkaaga qaraabadaada please and please waan ku salaama waxa la walaashid qaaliga Fadxi ku leenahay qalbi Allah ku dejiyo dhamaantiin u duceeya Soomaali Maxamed dhamaantiin salaama guys I love you so much sidaas iyo nabadgelyo di ay tahay markuu soo booqdo YouTube-kiisa subscribe saar aad u maasantahay sharaf karaamo video waxay nabadgelyo bye